Assalaamu calaykum daawadeel kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaan rabaa inaan idin soo koobo film cusub oo lagu magacaabo Man on Fire kaasoo soo baxay dhawaan 2026 ka hor intaansan muuqaalka ugu guda gelin waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like saarto sidoo kale aad kusoo biirto channelkeena Mo Films. Filmkeenu waxa uu ku bilaabanayaa dalka Mexico halkaasna waxaan ku arkaynaa nin ku jira qolka CCTV kamerada kaasoo lagu magacaabo John Crazy. Halkaasna waxa uu kala socdaa dhaqdhaqaaq walba oo ay kooxdiisu sameynayso waxaana arkaynaa inay howlgal muhiim ah ku hayaan meesha isaguna waxa uu mas'uul ka yahay inuu kor kula socdo dhammaan dhaqdhaqaaqa ama hawsha ay qabanayaan tiimku. Intaas kadibna waxaa soo wacaya saaxiibkiis kaasoo ah madaxa howlgalka isaguna waxa uu sheegayaa wax walba inay caadi yihiin isla markaana waxa uu hubinayaa group walba iyo qaybta ay joogaan dhammaan tiimkuna waa ay diyaar ahaayeen marka laga reebo hal group kuwaasoo aan diyaar ahayn. Waa uu shakinaya waxaana CCTV kamerada ka fiirinaya qolkooda laakiin nasiib xumo waxa uu ka weynaya xataa shanqadh yar. Intaas kadibna waxa uu ku dhex arkayaa nin ku jira qolka halkaasna waxa ku fashilmaya howlgalkoodii kadib waxa uu isku dayaa inuu u digo qof walba asagoo la xiriiraya waxaana gacanta lagu dhigayaa dhammaan kooxda inteeda kale isaguna waxa uu soo baxayaa banaanka halkaas oo uu kula kulmay qayb ka mid ah ragga weerarka soo qaaday waxa uu la dagaalamayaa dhammaan iyaga ilaa uu ka guuleysto. Waxaana arkaynaa inay dhacdadan ku riyoodo mar walba uu seexdo dhacdaas darteedna uu iskaga dhaafay shaqadiisii waxa uuna noqday qof leysi ah kaasoo nolosha ka dhacay isla markiina waxaan arkaynaa John Crazy kaasoo u soo socda shaqadiisa. Ugu dambeyn John Crazy waxa uu soo gaarayaa goobta shaqada isagoo shaqaynaya saacado fara badan. Intaas kadib John Crazy waxa uu isku dayaa inuu yimaado guriga isagoo soo qaadanaya gaarigiisa laakiinse intuu dhexda kusoo jiray waxa uu si lama filaan ah u dareemayaa wareer waxaana halkaas ku gelayaa shil. Inta kadibna waxa uu is arkayaa isagoo dhakhtarka yaala daqiiqadaha koobaad oo indhaha kala furna waxa uu arkayaa saaxiibkiisa oo agtiisa fadhiya isla markaana saaxiibkii Raybon waxa uu weydiinayaa sida ay wax walba u dhaceen iyo sida uu shilkan ku galay isaguna waxa uu sheekaynayaa inuu xasuusto kaliya isagoo shil ku jira wax kalena uusan ka xasuusan. Kadib Crazy iyo saaxiibkiis waxa ay soo raacayaan dhankaas iyo Brazil marka ay yimaadaan wadanka Brazil waxa si qurux badan u soo dhaweynaysa xaaska Crazy saaxiibkiis isla markaasna Crazy iyo saaxiibkiis waxay ka wada sheekaysanayaan arrimaha uu Crazy u yimid halkan. Saaxiibkiis iyo Crazy oo wada hadlaya waxa goobta imaanaysa Crazy gabadhiisa taasoo lagu magacaabo Boy. Raybon waxa uu sheegayaa inuu iska dhigo saaxiibkiis qof caadi ah uusan is dareensiin welwel. Inta kadibna waxa uu marka u dambeysay u sheegayaa inuu dadka soo dhaxgalo waxaana uu raadinayaa shaqo. Ugu dambeyn waxa uu sheegayaa inuu soo helo shaqo ayna berri isku raaci doonaan. Subaxnimadii Crazy iyo saaxiibkiis waxay soo gaadhayaan goobta shaqada. Intaas kadibna waxa uu imaanaya ilaaliyaha ama bodyguard-ka waxa uuna ka raaligelinayaa kasoo daahitaanka uu kasoo daahay isla markaasna saaxiibka Crazy waxa uu sheegayaa Crazy wax qabadkiisa waxaana uu sheegayaa inuu u shaqayn karo si ka fiican wax walba isla markaana waxa uu u sheegayaa kale waxaana uu sii raacinayaa inuu Crazy yahay nin la isku halayn karo. Intaas kadib ilaaliyuhu waxa uu dhiibayaa baastoolad waxaana uu sheegayaa inuu furfuro kadibna uu isugu celiyo isagoon waqti iska lumin waxa uu bilaabayaa baastoolada inuu hagaajiyo. Intii uu baastoolada ku mashquulsanaana waxa dhabar kaga imaanaya ilaaliyaha raggiisa kuwaasoo dagaal dhex marayo. Intaas kadibna waxa uu sheegayaa inuusan ku kalsoonaan karin sida qof Crazy oo kale ah oo daciif ah. Marka ay banaanka u soo baxaan Raybon waxa uu ka raaligelinayaa saaxiibkiis sida ay ula dhaqmeen iyo qaabka xun ee interview-ga uga qaadeen. Habeennimadii marka la isku yimaado cashada dhexdeeda waxa kacaya Crazy kaas oo iskaga tagay goobta saaxiibkiisna wuxuu ka soo doobaxaya waxa uu dejinayaa saaxiibkiis asagoo niyadda u dhisaya waxaana arkaynaa in Crazy la nool yahay nolol murugo joogto ah waxaana Crazy musqusha ugu soo gelaya gabadha yar ee Boy ee uu saaxiibkiis dhalay waxaana uu sheegaysaa inay ku dareemeen magaaladan jawi. Kadib intaasna uu ka raaligelinayaa waxaana uu sheegayaa inuu waxba ka qaban karin. Intaas kadib mid ka mid ah ragga burcadda ayaa waxa uu diyaarinayaa qarax aad u weyn kaasoo uu rabo inay ku burburiyaan howlgal. Raybon saaxiibka dhow ee Crazy waxa uu aad uga xun yahay inuu mar walba ay gabadhiisa asxaab cusub samaysato uu ka tago goobta isla markaana waxa uu sheegayaa uu ka bedesho magaalada mar walba oo howlgal muhiim ah u soo baxaan. Intaas kadibna waxa uu ka raaligelinayaa gabadhiisa wax walba isagoo uga cudur daaranaya inuu mashquul yahay. Dhanka kale waxaan arkaynaa Crazy oo jooga goob xaflad ah oo ay ka socotay. Crazy waxa uu bilaabayaa inuu cabo khamri badan taas oo ku keenaysa inuu aad u sarqaamo isla markiina asagoo sarqaansanayo xafladda ka soo tagaya. Halkaasna waxa ku sii dhaweynaysa saaxiibtiis waana gabadh ay hore shaqo wadaag u ahaan jireen waxayna ka wareysanaysaa hal uu ku dambeysay noloshiisa. isaguna waxa uu sheegayaa inuu howlgal u yimid dalka Brazil sidaas darteed ayuu u joogaa. Dhanka kale Boy si qarsoodi ah ayuu uga soo baxaysaa guriga waxaana goobta ka soo kaxaynaysa saaxiibkeed. Dhanka kale Crazy iyo gabadhii waxay soo gaadhayaan meel cidlo ah ugu dambeyntiina waxa uu ka dalbanaya inay halkan u joogto kadibna waxa uu soo baxaya banaanka si uu u nafiso laakiin laba nin oo halkaas joogtay ayaa weerar ku soo qaadaysa ayagoo oo mindi ku qabanaya Crazy saaxiibtiis waxaana dhex maraya dagaal gacan ka hadal ah. Ugu dambeyntii waxa uu ka adkaanaya Crazy labadooda isagoo ku dhow inuu dilana waxa ka joojinaysa gabadha Crazy waxayna iskaga soo tagayaan goobta halka Boy iyo asxaabteedu marka ay xafladda dhamaatay ay bilaabeen inay iska dhex jiiftaan hoolka
waxaana si degdeg ah u soo kacaysa Boy taasoo mootadeeda soo qaadanaysa. Intay dhexda ku soo jirtana waxay ku dhici maagaysaa gaadhi laakiinse waa ay badbaadaysaa waxayna soo qaadanaysaa mootadeeda. Ugu dambeyntii waxay imaanaysaa dhankaas iyo guriga. Intaysan soo gelin guriga waxay wacaysaa aabaheed ayadoo u sheegaysa inay wax walba okay yihiin. Inta iyada iyo aabaheed wada hadlayna waxaa dhacay qarax aad u weyn kaasoo burburinaya dhammaan dhismaha. Intaas kadibna waxaan arkaynaa subaxnimadii markii la gaadho Boyna waxaa la keenayaa xarunta ilaaliyaha waxaana halkaas sidoo kale la jooga John Crazy. waxaa loo sheegayaa makhraatiga xaadirkan la heli karo inuu Boy oo kaliya yahay sababtoo ah waa qofkii ugu dambeeyay ee arkay goobta. waxaana tusayaa muuqaal CCTV kaamirada duub taasoo muujinaya Boy oo joogta goobta markii uu qaraxu dhacay. Crazy waxa uu soo gelayaa Boy taasoo ku jirta xaalad shock ah maadaama ay wax walba horteeda ka dhaceen halkaasna ay ku weydii familkeeda. waxaana u sheegaya wax walba oo dhacay inay aamusto oo aysan qofna waxba u sheegin. u sheegaya inay imaan doonaan dadyo kala duwan ha ahaadaan saxaafad iyo kuwa kaleba kuwaas oo su'aalo ku weydiin doona. dhanka kale waxaan arkaynaa madaxweynaha iyo ilaaliyihiisu inay si qarsoodi u dhageysanayaan wada hadalkii u dhaxeeyay Boy iyo Crazy. isaguna waxa uu fahmayaa madaxweynuhu in waxauna John ku canaanaya madaxweynuhu sababta oo isagoo wax walba ka saari kara gabadha oo u dhahayo aamus. isaguna waxa uu sheegaya markay dalka ka tagto inay wax walba ogaan doonaan isaguna uusan dalka ka bixi doonin ilaa uu ka ogaado ninkii dilay iyo cidda ka dambaysa weerar. waxaana ka dalbanaya inay siiyaan hub uu isku ilaaliyo. intaas kadib isaga iyo Boy waxa ay ka soo tagayaan goob ayagoo soo aadaya gurigooda waxayna soo raaceen mid ka mid ah gawaarida ciidanka. Boy markay guriga soo gaaraan habeennimadii waxaan arkaynaa Crazy oo raba inuu isku diyaariyo hubkiisa. waxaana madaxa saaranaya maro madow waxaana si dhaqsiyo ah u xidhxidhaya hubka waxaana ku qabanaya bastoolad gabadheer ee Boy ee hurida. si aad ugu ogaato waxa dhacay fadlan subscribe dheh channelka muuqaalkana like saar. waad ku mahadsantihiin daawashadaada. sidaas iyo nabadgelyo.